nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay shan horteed ka faa'iidee buu nabigu yidhi iqtanim ka haniimayso hiya haniima haniimada waxaa la yidhahdaa qofku markuu dagaalka galo ee uu meesha qabsado wixii ay xoolo heleen baa haniimo la yidhahdaa yacni haniimadu waxay sheegaysaa inaad dagaalkii intaad guulaysatay weliba aad hanti soo heshay halkan waxaa laga dhigay kaanamaa nolosha inaad dagaal kula jirto nolosha dhexdeeda inaad halgan ku jirtid dabeetana nabigu wuxuu yihi shan ka haniimayso shan kale intaanay ku helin shantan laga haniimaysanaya waa maxay geeri noloshaada ka haniimayso intaan geeridu ku iman maalintaad dhimato dee kitaabkaaga uu xidhmaya marka haddii 50 60 70 yearska aada nooshahay ayaad shaqayn kartaa khayr iyo sharba waxaa la yihi ka haniimayso inta aad caafimaadka qabto intaanad bukoonin qofku markuu bukoodo waa caajis waxba ma qaban karo sariirta haddaad saaranta you can do nothing waxba qaban kari maysi markaad se caafimaadka qabto waa waktigaad wax qaban karto haddaad caafimaadkaba dareemi weydo inuu nicmo iyo culays kugu noqdo maxaanu qabanaa unaad tidhaahdo intaad waagu kuu bariyo waxaa laaliya waxaan qabtaba garan maayo waa dhib caafimaadka waxaa dareemo qofka dhakhtarka taga haddaad dhakhtarka dadka buka soo booqatid dhibta haysata iyo bishaa markaasaad waxaad garanaysaa inaad adigu nimco ku jirto laakiin markaad suuqa iska joogto inaad nimcaysantay moog mid intuu subaxii soo tooso yidhaahda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin saaka waan caafimaad qabaa wax yidhi miyaa leedihi maba xasuusanaysid laakiin subaxa aad soo kacdo iyadoo beerka lagu hayo ama madaxu ku xanuunayo rabbunba maanta caafimaad qabo iska rooraya baad is leedahay ninunba waxaasoo nimcaa haystaa anna qolkaan dhex fadhiya waa kici kari laha nabigu wuxuyna leeyahay ka haniimayso firaaqika qabla shughlik inta aad timeka haysato inta aanad mashquulin qofku markastoo da-diisu sii kortaba mashquulkiisaa sii bata waktiga keligii ma yeesho qofku markuu dhallinyarada yahay waktiga keligii baa le cide lama laha caruur ma maamushid cid kale ma maamushid naftaadun baad maamushaa mas-uuliyaad weyn oo ku saaran oo cid kale kaa sugaysaa ma jirto laakiin markay da-du soo korodho markaad 3 caruuro dhashid ee lagu yidhaahdo lagsayalkuu kala shaqee 3 saacadood la shaqeynaysaaba dhib kugu ah idan markaa waad mashquulaysaa waktiga waa lagula leeyay bulshadu waxbay kaa sugaysaa reerku waxbuu kaa sugayaa carruurtu waxbay kaa sugaysaa hadda waktigaagu tiro badan yahi wuu yaraanaya laakiin markaad dhalinyaro tahay 24 saacadood adaa iska leh laakiin haddaad ka dhigto inaad seexato iyo inaad boodboodo bes waad khasaaraysaa in hurda iyo in boodbooda haddaad ka dhigto waktigaagii o dhan markaa nebigu wuxuuna leeyahy alayhi salaatu wasalaam firaaqadaada ka faa'iidee intaanad mashquulin dadka badh baa firaaqadii iyadoo xanuun ku noqotayba oo laniyo maxaan qabtaa waktigii waxaan ku dilaba waa garan waay waa qofka marka hadafku ka lumo intuu soo toosa wuxuu qabtaba qofka bini aadamka hadduu garan waayo waa qof aan hadaf lahayn meelus target ma lahayn hadafku waa target yoolaad ku socotay ma jirin marka waxaad garan waaysaa dee waxaad qabato laakiin haddaad target lahayd waktiguba waa cidhiidhi jadwalkaagii markaad eegto maanta waxan baad qaban lahayd waxan baa ku sugaya waxan baad akhriin lahayd meeshan baad tegi lahayd ciddan baad caawin lahayd jadwalkaagu waa buuxaa laakiin marka aanad hadafba lahayn jadwalba ma lihide subxi markaad soo toosto ma soo anigo saaka maxaad qabataa hurdada ma iskaga noqotaa waa ka wanaagsanaya aan islahayn suuqa ma gashaa wax uu qabto markuu waayo tolo iska seexdaa nafku yidhi shabaabak qabla harimik ka faa'iide dhallinyaronimadaada intaanad gaboobin marka la gaboobo ama wakti la soo gaadho caqligu wuu bataa laakiin jirhkaa ku gabaya wixii aad ka fekeraysid ma wada qaban karaysid wax qor baad is leeday in yar haddaad qorto waad daalaysaa wax akhri baad is leeday in yar haddaad akhri waad exhausted baad soo gaadhay wakti uu jirhkii kuleeyahay waxaan ma qaadi kara baad joogtaa caqligiisa uu kuu batay oad si leedahay malaa wax badan inaad qabato eehay dhallinyarada waa cagsiga inta badan caqliguna wuu korayaa jirhkuna waa markuu xoogan yahay waxaad rabto waad qaban karaysaa everything therefore waktigaad wax qaban karaysay haddaad waxba qabsan weydo hadhow waad calaacali wey
berigaan dhalinyarada daasa waxaad qof aragtaan waa professor cilmi uu leeyahay kan buu leeyahay macnaheedu waa maxay waqtigu dhalinyarada ha ku dadaali weeyaan waqtigu dhalinyarada ha buu waqti bixiyey ilaa inta la riyoodo habeen inta la seexdo professornimada laguma riyoodo ama dhakhtarnimo inta la seexdo laguma soo riyoodo ama xoolo inta la seexdo laguma soo riyoodo laakiin waa maxay waqtigii uu baahnaa inuu wax invest gareeyo harvest waqtigii wax la goosanayna wax buu goosta haddaad waqtigii wax la beerayay seexatid maxaad u malaynaysaa inaad goosanayso dee markay dadku beeraha goosanayaan taad way engegnaanaysaa ila waxba kuma jiridin waqtigii la rabay inaad ku rideen dhalinyaranimadu waa waqtiga la rabo inaad wax harvest inaad wax beertid laakiin dhalinyaradu waxay isweydiisaa inta badan waa dee inaan shaqo tagaa maanta war shaqadan iyo waxaan 10 sanadood aad soo xamaalaysay 2 sanadood hal sano aad profession ku shaqaysaaba ka lacag badan 10 sano waxaad xamaal ka soo waday hal sano markaad soo baxdo aad profession leedahay waxa ku soo gala waa wixii 10 sanaba ku dhaafay hal sanaad ku keenaysaa laakiin yay kula macaananay 5,000 iyo 10,000 hore idan waxaad u baahan tahay waqtiga kani waa waqtigaad investment ka samaysanaysaa waa waqtigaad wax maal gashanaysay maxaad maal gelinaysaa cimrigaaga waxa laga rabaa inaad maal gelisaa waa cimriguna waa maxay waa secondiskan iyo minuteskan iyo saacadahan weeyaan cimriga lagu sheegay waa inta marka aad leedahay 20 sano soo jiray macnaheedu waxa weeyaan intaasoo minute iyo intaasoo second iyo intaasoo saacadood baa soo joogay maxaad ku qabatay haddaad wax gelisay harvest ugu fiicnaanaya goosashadu way fiican tahay haddaad waxba gelina ma fiicnaanayso saa daraadeed buu nabigu wuxuu leeyahay shabaabaka qabla harimak wa ghinaaka qabla faqrik markaad ghaniga noqotana inta aanad faqiirin ka faa'iidaysan leeyahay markaad hanti hesho cilmi hesho garaad iyo aqoon hesho wuxuu waa ghaninimo waa nimcooyinka ilaahay ka mid ah ilaahay ku siiyay markaad cilmiga heshay haddaad waxba ka faa'iideyn waydo la seexatid cid bari weydid cid wax ku anfici weydid waxba tadar weydid ma fi faa'iida manfac badan ma leh idan waxaad u baahan tahay inaad ka faa'iidaysid hana iloobin inaad nagala socoto Twitterka Facebooka iyo YouTubeka iyo website-ka aan ku leenahay internetka وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته